السلام عليكم دawadayaal meel walba joogtaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan markaan ku dhaho maalin wanaagsan waxaan u malaynaysaa inaan habeen ku jiro laakiin jawigeeni ayaa isbedelay habeenkii maalintii ma la kala garanayo maalin wanaagsan meel walba joogtaan waa mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waxaan ku wadaa arrin fajac geliso arrin ku fajacda ayaan ku wadaa ama arrin la yaab ku noqotay ayaan ku wadaa talo muxuu soo wadaa liyo Bidar Caawiye سليد نيو هير لوشين رج أيا وحكود العدين سوجدي كرسنا رج بقود العدين سليد نيو هير لوشين بدار أنت كعراين أيا وحكود العدين سوجدي لصعو برنامج الله يالميرو بجوكتان عن كل يومين ونكسن ومالين أحدا أفرتي بشي تونات لو كوني لواتنك ومالين أحدا حديت هامرك جوري صوبه الجنة لك بدر عاويتي في وحاسي حشمد لك هاي عصنا يا إنا شير سبسكرايب لايك كومنتي شير انت بينا قسميسو جنالك بدر عاوية تي في أرين معجزة الأيام قوة مانتا لأن يرى كم من بربارتا قاشامان أو يقلصوا حيرين تمركن كله سليتي أي سوق كرسيدت بدن بحوليهم ورمحاب دعي ورمحا قلدن ورمواشين وعن قوة اللي لاندير لوا معهن وحكونوا لي هاي waddanka Faransiiska hatta waxaan ku yiri fadlan magacaaga aan qariyo ha qarin uu yiri la wadaag barbaarta gaashaaman magacayga la wadaag barbaarta gaashaaman dhowr dhalinyaro ah oo wada degan waay Paris ama Faransiiska dhowr dhalinyaro wada degan walaalkaas marka insha Allah halees ama waxaan wadignay afgarashadeena waa Landere wuxuu ila soo wadaagay wuxuu yiri niyo waa ku maadsantahay barnaamijyadeeda maanta ila soo hadlay wuxuu yiri waa ku maadsan tahay barnaamijyada Bidar Caawiye TV waa ku liibaanay wiil kamid ah barbaarta gaashaaman ama asxaabteeda kamid oo asaga la joogtay Paris isbitaal ayuu jiraa uu yiri wax kale ma ahan saliid New Hair Lotion hada si qalad u isticmaasho isbitaal ma ahan 100 isbitaal ayaa galaysa waxaan ku leeyahay mar walbo taxadar isticmaalka yarkaas wuxuu ila wadaagay uu dhaar igu maray yarka walaalka uu dhaar igu maray qof cunto ku darsan saliid ma ahan laakiin hasuug weyn rag baa saliid intay bidaar ka cararayeen New Hair Lotion cabitaan ku qastay ama daqiiq ku qooshay ama suugo ku dalacday ama bariis ku dalacday waa maqli doontaan rag badan oo aan ogahay oo ka cararaya bidaar ayaa cuntadii ku dalacay saliid New Hair Lotion intay bidaar ka cararayeen taas caloosha timo uga soo baxeen caloosha ayaa timo uga soo baxay waa maqli doontaa hasuug weyn la soo barnaamijkeena Bidar Caawiye TV walaalka wuxuu ila soo wadaagay ku nool waddanka Faransiiska Paris wuxuu ila soo wadaagay caawo wuxuu igu yiri hal dhalo New Hair Lotion niyo ma haysan buu yiri information fiican baashi timay soo saartaa maqalnay markaas habeen iyo maalin iyo subax iyo maghrib iyo saqdhexe waa iskala daanuu yiri waa habeen fiidkii saqda dhexe hadduu ilaahay ku rumeeyaa aroorti waa iskala daalin uu yiri New Hair Lotion ayaa iskala daalin nafta iskaga qaban uu yiri New Hair Lotion ayaa nafta iskaga qabanay aniga iyo barbaar niman aan saaxiibanahay oo meesha wada degan halkii dhalo ayay waxay ku dhameysteen shambari waa halkii caag oo New Hair Lotion ayaa shambari lagu dhameeyay markaas nin naga mid ah anaga jiif iyo joog ayuu diiday nin naga mid ah anaga barbaarta gaashaan kamid ah ama raggi la jooga guriga la marsanay baasha ayaa hurdo ka soo dhici weyso madax xanuun ayuu ka qaaday kadib ninkii isbitaal baa loo qaaday si qaldan ayaa u isticmaalnay yiri kadib ayaa ogaanay waxaan inaan si qaldan u isticmaalayno oo si qaldan aan u wadno kadib ayaan dib ka ogaado yiri dib ayaan ka saxnay waana ku maadsantahay barnaamijyada Bidar Caawiye TV waxaan kula soo wadaagi doonaa sawiradeeda ayaan kula soo wadaagi doonaa walaalka waa la tiriyo waxaan ku yiri yarka ku xanuunsadana Allah caafiyo caafimaadka Allah haayo wax walba si qaldan loo isticmaalo xanuun waa laga qaadaa insha Allah yarkaasna Allah caafiyo oo soo duceynayna laakiin hadda ka bacdi iska saxa waxaan rabaa inaan barnaamijka oo kale ku soo qaato walaal kamid ah barbaarta gaashaaman oo Holland joogo walaal kamid ah barbaarta gaashaaman magacayga qari ayuu yiri laakiin wuxuu nala soo wadaagay waxaan leeyahay waa macalinkeena walaalkan kale ee Holland ku nool waxaan leeyahay waa macalinkeena sawirada ku arkayseen barnaamijka bilowgiisa iyo dhaxda barnaamijka iyo dhamaadkaba waa walaal kamid ah barbaarta gaashaaman ee ku nool waddanka Holland ayuu ku nool yahay
saliidda new hair lotion wuxuu bilaabay bisha agoosto kowdeeda ayuu bilaabay saliidda new hair lotion wuxuu guwaabay ila soo wadaagay u sheeg barbaarta gaashaaman markaan bilaabay ayuu yiri saliidda new hair lotion markuu bilaabay walaalka Holland ku nool oo kale kuwii Faransiiska oo ku sheegay walaalkan kale oo Holland ku nool markii saliidda ee bilaabay new hair lotion wuxuu yiri markaan 3 isbuuc uu yiri marka hore kaftan bay iga ahayd new hair lotion ayaa timo soo saarayso kaftan ay ahayd bidaarta uu leeyahay aqligaaga diidaya bidaarta uu leeyahay hadaa aragto aqligaaga diidaya dad badan bay aaminsan yihiin wixii inay kaftan yihiin saliidda new hair lotion iyo darmar madax saa loo mariyo darmar yar madax saa loo mariyo timo soo saaray dad badan bay filan la tahay walaalkan wuxuu igu yiri ku guubaabi barbaarta gaashaaman waxaan sameyn jiru yiri walaalkaas waa dhafri jiru yiri dhafarta aad baa basan jiru yiri waxaan ka faa'iido yiri barnaamijkaaga oo kale wax badan laakiin dib aan kaaga wadaagi doonaa wuxuu yiri walaalka waa dhafri jiray saliid new hair lotion ayaan isticmaalay markaan 3 isbuuc aan isticmaalay new hair lotion markaan 3 isbuuc isticmaalay oo laakiin si qaldan ah u isticmaalay yiri darmar walka markaan rabo waa marinayay shantii biro ugu horeysay darmar markaan mariyo ku xanuunsaday shantii biro ugu horeysay markaan darmar walka mariyay ayaan madaxii bararu yiri waa iska joojiyay darmar walka saliidda kaliya isticmaalay yiri markaan 3 isbuuc wadana waa ku daalay waa saliidda new hair lotion walaalkan markuu 3 isbuuc waday waa ku daalay yiri kadib ayaan waxa helay janaalkaaga Bilal Caawiye TV kadib ayaan ku dhageystay waxyaalaha ka faa'iido waxa kamid yiri kaniinigan wallahi wax kale inuu idhiin billahi tallahi kaniinigan hair volume-kan ko fitamiinadii aan noo sheegto kala sida kalluunka kale in la badsado qudaarta qofka inuu badsado in qofka bini'aadamka dhafarta inay dib leedahay dhafarta in la iska daayo wallahi waa kulli baan yiri 15 sano ayaan koofiyad u yiri 15 sano ayay koofiyad timi ahayd yiri maantana koofiyadii waa tuuru yiri hadda u fiirsa hadalkayga 15 sano ayuu walaalkan koofiyad watay 15 sano ayuu koofiyad watay maantana koofiyad uu dhigay waan kula wadaagayaa sawiradiisa before and after ogow hadaba bishii 8aad ayuu bilaabay bishii 8aad kowdeeda ama labadeeda ayuu bilaabay saliidda new hair lotion gabigeedaba bishii 8aad wuxuuna dhamaystay laba caag saddexaad ayaa u furan waxa u furan waa caag saddexaad wuxuuna ila soo wadaagay gaarsii barbaarta gaashaaman ballan iyo axdi waa ka gaarsiinaya wuxuu yiri ha iska joojiyaan haday taladeeda qaadanayaan ha iska joojiyaan dhafarta ha iska joojiyaan fitamiinada cunayaan sida kalluunka oo kunta qudaarta oo kale waa inay badsadaan kaniinigan hadduu qofka helayo oo hair volume-ka waa inuu raadsado yiri aad baa ammaansantu yiri barbaarta gaashaaman naga gaarsii sawiradiisa quruxda before iyo afterna waxaa ku arki doontaa barnaamij ayaa ku arki doontaa walaal kale ayaa wuxuu ila soo wadaagay adduunka ilaahayna ogow qof bini aadan ku saaciday ha ka dhigin dhakhtarkaaga qof bini aadan hadduu ku saacido ha ka dhigin qofkii inuu dhakhtarkaaga yahay waxaa wadna waxay tahay waan dadaal aniga isticmaalay new hair lotion bidaar ayaan lahaa guul ayaan ka gaaray isticmaalkeeda iyo sida loo isticmaalo ayaan rabaa inaan walaalaha sida qaldan u isticmaalahay sida walaalaha Paris oo joogo kale si qaldan ay u isticmaalaan inaan la wadaagaan rabaa walaalka ayaa wuxuu igala soo hadlay Somaliland Hargeysa wuxuu igu yiri niyo timahan inay soo baxayaan dheeraanayaan timihii hore ma laho waxaan ku yiri niyo ani adoo kala nahay saliidii wali waa isticmaaloyaa laakiin markaan shalay bilaabay saan ahaa maanta ma ihi ilaahay baa maqlaayo labada garbood malaa'ig baa iga saaran shalay markaan bilaabay saan ahaa maanta ma ihi adigana rabbi tala saaree isticmaal dad timo soo beertay iyo dad saana iyo dadkii timaha beertay hadda rag badan ay daawanay timo soo beertay oo isticmaalayo new hair lotion timihii beerashada waa faataa dhug ee noqotay waxa uu tiri waayeen waxaa laga yaabaa new hair lotion inay wax u tarto marka walaalkaas waxaan ku yiri iska dhaaf shakiga iyo waxa wadee new hair lotion rabbi tala saar nin go'aan noqo isticmaal aysan ahayn faraha ka qaad ama qof kugu qasbay ma laha anaga qof nugu qasbooy ma laha laakiin waxaan ugu qasbooy bidaartan ka cararayna waa bidaartan ka cararayno ayaan ugu qasbayso walaalka Holland ku nool waxaan leeyahay guul macallin ayaa noo tahay rag badan ayaa kugu dayan doona insha Allah bidilaahi kariim sawirada before iyo afterna waa la wadaagaya waxaana ku tirin dhalinyarada barbaarta gaashaaman ee gaarsiiyay dhafarta inay iska dhaafaan inay fitamiinada raadsadaan ka maqan in sida saxda ah u isticmaalaan new hair lotion guul way gaarayaan waxayna u baahan tahay sabar kaliya guul way gaarayaan laakiin waxay u baahan tahay sabar sawiradaas waan kula soo wadaagaya sawiradiisa barnaamijka bilowgiisana ku arki doontaa barnaamijka dhexdiisana ku arki doontaa dhamaadka barnaamijkana ku arki doontaa insha Allah anigoo Liam Bidar Caawi waxaan ku leeyahay walaal macaane rabbi tala saaro kalsoonina muuji
wax walba waqti ayay u baahan yihiin waqtigooda sug ha degdegin guul waa gaaraysaa si saxa u isticmaal new hair lotion guul waa ku gaaraysaa waa anigoo William Bidar Caawiye ku dhahayo maalinta ku wacnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.